waxaa baryahan aad noogu soo batay shilalka gaariga waxaan farayaa dhammaan ciidamada booliiska ee kontaroolada jooga dhalinyarada in ay dalxiisaan oo meelaha quruxda badan dalka aadaan oo ay damaashaadaan waa wax wanaagsan oo aan soo dhaweynayno laakiin waxaan rabaa gaarigii kontaroolka maraya ee damaashaad u socda oo aanan dareewal mas'uul ah uusan wadin inaan loo ogolaan inuu baxo dhalinyaradu intay baabuurta aabood ka soo qaataan ama dhalinyaro meelaha ka soo qaataan intay iswada raacaan iyagoo aanan lahayn garaadkii ama aqoontii xirfaddii dareewalnimo inay maalin walba ayna gidaarada ku dhicin qofka dadka kale ee aan badqabka qabin ee mararka qaarkood dhaqannada xunxun samaynaya ama ay dhici karto maandooriyaal inu isticmaalana waxaa la rabaa markay hubiyaan inay gaarigaas ay meeshiisa ku arraysteeyaan oo joojiyaan waxaan u baahannahay waxaan aad u rajaynayaa arrintaas waan arkaynay tababarkii ciidamada wadooyinka taliyaha booliiskana hadda wuxuu sheegay inuu koorsooyin dheeraada ay samayn doonaan waxaase ugu muhiimsan waa wacyigelinta iyo ciidamada kontaroolada jooga inay la tacaalaan dadka gaadiidka wada iyo sifooyinka ay u socdaan oo ah inay ahayn dad aan mas'uul ahayn inay baabuurta wadaan iyo xilliyo aan munaasab ahayn iyo dad iska maaragtay damaashaadayo dadku waa damaashaadi karaan laakiin waxaa la rabaa dareewalku inuu yahay nin mas'uula oo dadka damaashaadaya uu mas'uul ka noqdo laakiin hadday tahay dad iska wada cayaaraya hadda khatarta dhacaysa waad arkaysaan maalin walba dhalinyaro yaryar baa dhibaato ku soo gaaraysa marka waxaan rajaynayaa iyadana in arrintaas wax laga qaban doono waxaan u baahannahay inaan maaragtay wax ka qabanno tahriibayaasha waxaan u baahannahay inaan wax ka qabanno dadka maandooriyaha ka shaqeeya waxaan u baahannahay dadka xag jirka ah ee dalkeenna raba inay nabadgelyadiisa waxyeeleeyaan iyo dadka dalka dhaqan xumada ku soo abuuraya intaba waxaan rabnaa inaan si midaysan uga hortagno gacmihii iyo lugihii dalka lagu sugi lahaa baa tihiin waxaan aad ugu faraxsanahay runtii sida wanaagsan oo iniga muuqatay markii aad hadda dhoolatus ka samaynayseen waxaan qirayaa dufcadihii horeeto inay dufcaddan ay ka tababar fiicnayd dhinaca weliba gaardiga iyo disiblinka waxaan kaloo ku faraxsanahay dhallinyarada baambeyda ah ee gabadhu hoggaaminayso iyagana ka muuqato xirfad fiican oo istababarkii galeen waxaan inii boorrinayaa dhammaanteen inaan dhammaanteen noqonno ciidan ummaddan u adeega oo ammaankiisa xasiloonidiisa ka taliya waxaan rajaynayaa horumarka aan gaarayno waxa ugu muhiimsan horumarka dhinaca amniga aan ka samayno ciidamada puntland meel kasta ay joogaan waxaan farayaa foojignaan dheeraada waxaan kula talinayaa inaan la seexan waxaad og tihiin makriga cadowgu wuxuu u badan yahay marka ay dadkan ay dareemaan in ay horumar gaareen cadowgu waa sii kordhaa marka yaynan is odhan ciidamadii baa noo tababartay waxbaan wanaag badan baan qabannay laakiin foojignaantan in la dheereeyay u baahan tahay oo indhaha la kala furo waxaan rajaynayaa ciidamada tan oo aan rajaynayo haddii ilaahay sida halka laga sheegay xuquuqahooda inay si wanaagsan u heli doonaan tababarka ay qaateenna ay bulshadooda ugu qaban doonaan
weyn baan ii rajaynayaa iyo horumar waxaan rajaynayaa insha Allah in ay saraakiishiina iyo madaxdiinuna aad ka heli doontaan waxaad ku faraxdaan iyo abaalmarinaha aad mudan tihiin aad baa u salaamantihiin wassalaamu calaykum waraxmatullaahi